maanta farxad ayay ii tahay in ay idinkala qayb qaato xuska sanad guurada Hillbarace iyadoo jirsatay 3 sano. asxaabta qiimaha badan ee fikradani hirgelisay waxaan leeyahay hambalyo. mar labaadna waxaan idin leeyahay hambalyo in Xamde Cigaal maanta ay hogaaminayso shirkadda Hillbarace. waxaa hubaal ah in geedi socodka horumarka Hillbarace halkaas ay kasii wadi doonto weliba si qurux badan. waxaan leeyahay guuleyso. Hillbarace waxay u heelisay afkii Soomaaliga welina u heelinaysaa. waxay kaloo Hillbarace u heelisay in qoraaga uu helo in uu soo gudbin karo fikirkiisa iyo waxa ka guuxaya. sidoo kale waxay u heelisay in qofka Soomaaliga ahay uu wax ka ogaado ummadaha kale iyadoo ay noo soo turjuntay buugaag afkii Soomaaliga loo rogay, buugaag qiimo badan. aqoonta wadanba heer ayuu ka gaaray, ummadaha adduunka waa lagu kala hormaray. haddana waxa inoo furan oo la wadaagnaa waa akhriska. maanta gacanta waxa aan ku hayo oon akhrinayo buug ay ka mid ah buugaagta ay Hillbarace soo saartay oo la yiraaho seeska dhaqaalaha. buugani wuxuu ka hadlayaa oo sharaxayaa afkaarta asaaska ama seeska u ah cilmiga dhaqaalaha. qoraaga buugani habka uu qoray oon aad uga helay in uu dhaqankii ama uu ku bilaabay oo saldhig uga dhigay ku furfurtay cutub kasta gabay, hees, geeraar uu ku soo dhaweynayo macnaha cilmigani dhaqaalaha. sida dogsoontiin akhriska ama waxyaabaha buugaagta faraha badan ee Hillbarace qortay way kala duwan yihiin, majaalo fara badan ayay ka kala hadlaan. akhriskana waxyaabaha laga faa'iido waxa u badan ama ka mid ah in qofka maskaxdiisa uu furo, koriyo, afkaar ku dhaliyo, kadibna uu la falgalo habdhaqankiisa ka soo muuqdo. waxaan ka xumahay in mararka qaarkiis aan aragno in qof sheeganaya akhrista inuu yahay buugaag fara badan oo akhriyayna la wadaago, haddana saasay tahay habdhaqankiisa ka muuqanin, arkayso fal xadgudub leh in uu ka kacayo. marka waxaa la rabaa akhrisku in uu qofka maskaxdiisa yeelato in ay wax qaabili karto, aqoonta ay qaabili karto si ay wax uga soo muuqato qof waxgarad u noqdo. Hillbarace waxaan leeyahay hamoogaanina waa hoyga hiilada. sanad guuro wacan, hambalyo, guuleysta.